kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan waa mar kale iyo faaqidaadii wararkeena waxaana diiradda aan ku saari doonaa hadduu eebba uu idmo qodobo xasaasi leh. xog sir ah ayaa waxaan ka helay dadka soo gudbiya qaraxyada ee lagula beegsado magaalada muqdisho iyo xerooyinka ciidamada. waxaa kaloo aad wararkeena aad ku dhageysan doontaan dagaalka dowladda Soomaaliya ururka al-shabaab u dhexeeya oo sii xoogaysanaya dowladuna abaabul xoog leh ayay hadda ku jirtaa. waxaa kaloo isla qodobada wararkeena aad ku dhageysan doontaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo cabasho ka muujiyay golihiisa wasiirada iyada oo uu sheegay in ay wasiiradu wax amara ay ra-iisul wasaaraha ay ka qaadanaynin oo si toos ah madaxweynaha ay u hoos tagaan. waraaqdaas codsiga ayuu madaxweynaha u gudbiyay. qodobadeenaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaan barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa, waxaana isha ku haya saaxiibkay Gooni oo badanaaba falanqeeyaheena guud ee barnaamijka. Gooni soo dhow. maado waa maasan tahay haddaan ku hormarno horta magaalada muqdisho waxaa aad loo soo geliyaa qaraxyada qaabka loo soo geliyay iyo sirta ka dambeyso iyo sida wax iskugu xiran yihiin ayaan ogaanay. xog fara badan oo aan wareysanay iyo qaabka aan ogaanay waxay tahay ciidamada Soomaaliyeed ee magaalada muqdisho difaacyada kaga jiro iyo kontaroolada ku haysta ayaa waxay ku xiran yihiin isheeg taliyaashooda maadaama taliyaasha ay ka amar qaataan taliyaashan waxay ku xiran yihiin rag ganacsataa. marka magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaara waxaa ku nool ganacsato aad u waaweyn oo ururka al-shabaab ay maalgeliyeen. waxaa maalgeliyay shabaab oo dhaqaale siiyay, waxayna ku heshiiyeen inay ganacsi furaan oo dukaaman iyo baqaaro furaan, kadibna markay ganacsiga furaan ee faa'iidada soo baxdo shabaabka iyo ganacsatadu ay qaybsadaan. marka raggan ganacsatada waa la maalgeliyay, waxaa la dhahay noo shaqeeya, lacagta markay soo baxdana qaybtiina qaata, qaybteena anaga noo soo dira. marka ragga waxay u shaqeeyaan waa shabaab maalgeliyay. marka waxay sameynayaan waxyaabaha looga baahdana waa u fulinayaan. marka waxaa la sameynaa markii qaraxyada magaalada muqdisho kontaroolka ay ciidamada ku qabtaan waxay ciidamada kuwa meesha jooga oo qaraxa waday waxay wacayaan ninka ganacsadaha. nin ganacsada waxay leeyihiin meesha nagula haystaa waa nagula dhagan yahay. marka rag ganacsada waa rag nambaradooda la siiyey oo mar walba xogta gudbiyo soona gudbiyo nimanka qaraxyadooda soo gudbiyo. waa telefoonka marka ganacsadaha loo diro ganacsadaha wuxuu toos u wacayaa taliyaha ka arrimiya meeshaas oo ciidamadu ay hoos tagaan. marka lacaga meesha ku jirto oo lacaga la siiyaa. marka taliyaha toos u wac wuxuu leeyahay gaari meesha siiso targadiisa tahay oo noocaas ama gaari weyn ama gaari yar wax rabaa oo meesha taagan ayaa laga dhagan yahay, askar ayaa laga dhagan inay soo gudbisaan rabaa. okay wax yar isugu leeyahay ninkan lacagtiisa golba meel loogu shuba ama akoon loogu shuba bis telefoonka toos u dira kontaroolka wiilasha joogo ciidamada taliyaha soo hadlay leeyihiin gaarigaas hala fasaxo yaana la baarin, gaariga waa la sii deynaa magaalada muqdisho taga qaraxa dhacay markaas kadib. marka dhibaatada ugu badan ma hado waxa waaye ganacsato shabaabka u shaqeeyo. dadku waxay raadinayaan ganacsato shabaabka ku xiran, dowladdu waxay raadinaysaa ganacsato oo shabaabka wax siiso ama macanshuur siiso. waxaa ka daran ganacsato shabaabka u shaqeeyo oo lacagta lagu shaqeeyo shabaabka ay leeyihiin kuna xiran shabaabka ayaa magaalada muqdisho joogo. 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 10 midna ma aha, waa boqolaal ilaa 200 300 oo ganacsato waa leeyahay oo weli magaalada muqdisho ganacsiga ugu waaweyn ku haysto. marka raggaas oo kale waxay u baahan tahay in la dabagalo. waxaa lagu sameyn karaa in aad loo dabagalo la soo ogaado. dowladda federaalk Soomaaliya way ka shakisay arrintaasna way soo caanbaxday, anaguna wax badan aan ka ogaanay oo xog badan aan u xoraansanay. marka ma hado inta ugu badan ganacsatada iyo nimanka saraakiisha ciidamada saas isku xiriyin lacag ayaana dhex marto mar walbana saas qaraxyada magaalada muqdisho lagu soo geliya. waad mahadsan tahay Gooni. arrintan waa arrin cajiib oo aad iyo aad u cajiibsan. Soomaalida dhaqan waxa ay u leedahay ninka hantiilaha iyo ninka madaxda ah oo xildhibaan ahay xitaa sargaal ha ahaade in la xishmeeyo markuu dadku u imaado in gaarigiisa si fiican loo baarin, in la salaamo gacanta loo taago, in xogow xishmad la siiyo. hadda arrinta dhibaatada keenaysa qaraxyadan dabada ay salka hadda la soo galayso nin hantiila ah oo lacag ka dheragsan oo askartu ay yaqaanaan oo markii wadooyinka iska hormay gaarigiisa soo wata $100 $50 ee gacanta u gelinaya askarta ay saaxiibo yihiin oo qadada ka bixiyo oo hilibka isla cunaan oo saaxiibo yihiin. hadduu dhaho hebelow gaarigiiba layga dhigan yahay wajibu u samaynaya gaariga saas haddaa xitii uun lacag un qaadanin ninkaas, haddii uun lacag qaadanin ninkaas xitaa haddii si wajiya uu ninka oola hadlo wuxuu leeyahay gaariga iska soo daaya. saas darteed waxaa laga yaabaa taliyahaas inuu laftiisa uun warba ka hayninba inuu ninkan uu qarax iyo balaayo u wado, laakiin saaxiibtinimo kalo isaga iyaga ka dhaxaysa waa nin dhaqaale haysta uu dhaqaale u siisan jiray in ay ku saaxiibeen. marka waxaan is dhihi karnaa arrintan waa arrin aad u weyn. dowladda Soomaaliya meelo kale oo fog iyo waxyaalo kale raadinaysaa. laakiin ma waxaa jirto taliyaasha lacaga la siiyaa gaariga inuu qarax wada qaarkood way ogyihiin sababta lacagta loo siinayo waa inay ogaadaan mogtahay.
marka gaariga inuu qarax wado gaarigan qarax wada la isagama dhago. cabdi dowladda soomaaliya sirdoon bay leedahay waxay leedahay xuuraan bay leedahay ninka sargaalka gaariga sii daayey markii asaga la qabsado oo askartiisa dib loo xuuraayo inuu hebel sii daaya la dhahay gaarigaana gaariga qarxaya lambarkiisa waa la garanhayaa ninkaas in la qabto oo xabsi la geeyo oo maxkamad la saaro oo dembi lagu oga way fiicanta laakiin dowladda waxaad moodaa ayadoo wixii sheegaysa inayna haddana si toosa ugu tallaaba qaadaynin arrintaas maxaa sababay cabdi laakiin xogtan oo hadda anaga aan soo gudbin oo kaleeto waa xog sir ah oo ganacsatada iyo dadka dhexdooda laga helay laakiin xiriirka ka dhexeeyo waxaa soo ogaan karo in nisa ama micnaha la dhegeysto xiriirka dhex maraya ama telefoonka la dhegeysto si loo ogaado xogta dhex martay iyo gaariga lasoo daayay waxaasoo dhan in la dhegeysto ayaa fiican saasaa dowladaha adduunka ay ku shaqeeyaan oo Kenya ugu sukayso iyada sirdoonka ay ku dhegeysataa telefoonada dhex mara labadaas qofood waa la soo celiyaa laakiin shirkadaha Hormuud iyo shirkadaha kale National iyo Olympic waa inay dowladda hoos tagtaa ama nisa ay hoos tagaan kadibna lagu sameeyo baaritaan ama dhegeysi lagu sameeyo dadka xiriirayo saasaa lagu ogaan karaa laakiin si kale laguma ogaan karo dadka wax dhex maray iyo sababta dhaqaalaha u kala qaadanayaan mahadu waad mahadsan tahay qodobkeena haddii aan horay ooga sii soconno warar baa waxa ay sheegahayaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka xamse cabdi bare in uu golihiisa wasiirada ka dacwooday maxaa keenay ra-iisul wasaare inuu dacwad uu ka geeyo wasiiradiisii horta maada wararkeena hore waxaan ku gudbinay in ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu macnaha shaqadiisa ay gaabis tahay dowladda federaalka soomaaliyana ay dareentay inay shaqadiisa gaabis tahay dadka shacabka soomaaliyeedna waxay sheegeen inuu yahay ninkan nin buul ah oo meesha iska joogo wax shaqa uuna haynin laakiin wararkii suuqa aan ka sheegaynay iyo saxaafadda aan ka sheegaynay dad badan dhibsanayay oo dhahaya ra-iisul wasaaraha laga leexdo qalada laga galaa laakiin asagii baa hadda is arkay wuxuuna warqad cabashaa u gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna ka cabanaya wasiiradiisa intooda badan wuxuuna dhahay wasiiradu wax rasbagti ima hayaan haday safar dibadda aadayaan wuxuu dhahay ima sheegan wuxuu dhahay markaan kulamada qabanayna qaarkood ma imaadaan marka wuxuu yiri in wasiirada dadka oo hadda toos ugu xiran oo ka shaqeeyo oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan waa laba nin oo dhahay labadaas nin midna waa wasiir midna waa nisa wuxuu dhahay mid waa Mahad Salaad midna wuxuu yiri waa ninka la yiraahdo Axmed Macalin Fiqi labadaas qofood waxay leeyihiin haloo daayo ra-iisul wasaaraha shaqadiisa wasiiraduna hala shaqeeyaan laakiin wuxuu dhahay wasiirada intooda kale wax respect ima hayaan madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dhahay waa inaad arrintaas soo dhex gashaa wuxuuna dhahay shaqadiisa halay madax baneeyo maadaama ah ra-iisul wasaarihii dalka ra-iisul wasaaraha wuxuu xeerinayaa inuu khilaaf yimaado ayuu ka cararayaa wuxuuna diidan yahay in mar labaad hadda iyadoo dowladdu bilow tahay in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku dhacaan ama wasiirada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isku dhacaan laakiin sidan hadday wax usii socdaan ugu dambeynta ra-iisul wasaaraha uu burqan doonaa laakiin hadda warqad cabasho u gudbiyey marka ugu dambeysana inuu khilaaf imaan doona u malayna cabdiyow ra-iisul wasaaraha cabashadiisa maadaama aad wararkeena hore noogu sheegtay inuuba dadka horena in badan la sheegay lagu eeday inuu yahay shaqa inaan shaqadiisa qabsanin maanta asagii golihiisa wasiirada uu magacaabay ee asaga ka hooseeyay hoos jooga asaga uu magacaabay oo berri haddii ku dhaqaaqo xilka uu ka qaadi karo uu maanta ka cabanayo malaha waxaan isdhihi karnaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa madaxa kaga taagan wasiiradana waxay ogyihiin madaxweynaha isdhihi karnaa miya macnaha wasiiradana waxay saaxiib leeyihiin madaxtooyada Soomaaliya marka culayska meesha ka imanaya meesha waaye marka waxay isku haleynayaan madaxweynaha ayaga aan khilaaf kala dhaxaynin inaan waxba lagu sameyn karin marka taas ayaa keentay marka sababta marka waagi xataa madaxdii hore ee Soomaaliya rag fara badan jiri jiray oo wasiir wasaarayaasha hore qaarkood way ismada adkay jireen ninkii la dhihi jiray Cawad oo asagana wasiir ahaa xasan cali khayr inta badan uu ka weecan jiray madaxweynaha Soomaaliya toos ugu xirnaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo wasiirada kale toos xasan cali khayr ugu xirnaa laakiin ninka la yiraahdo Cawad oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa inta badan xasan cali khayr kulamadiisa iyo uu iska weecan jiray marka wasiir waxaa jira rag fara badan oo ra-iisul wasaaraha iska weynaysiya jiro oo ka carar marka ninkan waxay isaga weynaysiinayaan madaxtooyada toos ugu xiran yihiin cabsi in xilka laga qaado ahna ma qabaan oo madaxweynaha ay ka haystaan graduation saaxiib ka haystaan okay waad mahadsan tahay qodobkeena horaan oga sii soconaynaa dagaal u dhexeeya dowladda iyo shabaab ayaa wax badan soo socday bilayowgan aan soo dhaafnay hadda weli waxaa socda abaabul in shabaabka lagula dagaalamo shalayna dagaal baa ka dhacay meel ka mid ah gobolka Shabeellada oo shabaab fara badan baa lagu laayay hadda waxaa la sheegayaa weli inay shabaabka isu soo abaabulahayaan oo weli ay rabaan inay cabdiw dagaal ay soo qadaan shabaabku maalmihii hore waxaad moodaysaa in laga yar adkaaday oo yar carareen oo ay baxday laakiin hadda xogow awood ba isyar bidahayaan way soo dagaal ay soo qaadahayaan maxaa sababay inay dowladuna hoos u yar dhacdo shabaabkuna hadda aad moodeen kor u soo yar kacaan horta shabaabku waxay sameynayaan dhaqaaq inta dagaal lagu qaadina horta dagaal lagu qaadi rabaa in galmudug waxa lagu diyaariyay dagaal aad u culus oo madaxweyne qorqor wuxuu dhahay waa in dagaalka lagu qaadaa
dagaal culus aan lagu qaadi rabaa wuxuuna waa in la xoreeyo ceelbuur iyo xardheere si degdeg ah maalmaha soo socda ceelbuur iyo xardheere gacanta dowladda federaalk soomaaliya lasoo gelin doonaa ciidamada qorqoor oo halkaas ku hogaaminaya dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada galmudug intaba dagaalka ay geli doonaan jiraa in dhacdo meesha ka hadlan wuxuu yidhi aniga dagaalka dadka hormuudka ka ah halaigama dhigo dagaal weligay kuma guuldareysan sida shabaab loo weeraro loo laayana waa naqaanaa waana geli doonaa yidhi dagaalka afka hore ayaan ka geli doonaa marka halkaas hanjabaad aad u culus ayaa ka jirto laakiin dagaal wuxuu shala ka dhacay ceeldheere meel lagu magacaabo oo kala qaybiyey xadka shabeellaha dhexe iyo xalin iyo wararkeena ku sheegnay shabeellaha dhexe iyo wuxuu kala qaybiyaa iyo hiiraan marka ururka al-shabaab shalay dagaal ku gala halkaasi shalay waxaa soo baxday in 5 qofood laga dilay shabaabka midna nolol looga qabtay laakiin saakay waagi markuu baryay meedad kale ka carareen la helay oo jidka ay uga tageen marka shabaabka meedadkooda ilaa hadda waxaa leeyahay deegaanka ceeldheere markii 10 kilomitir laga baxo weli meedadkooda ayaa diyaarsan qaarkood xitaa waxaa leeyahay iyagaa dhammaystirayba oo raggii ka dhaawacmay sii dhammaystireen marka al-shabaab xaaladoodu mar ka dambe sii adkaane inay weerar iyo waxyaabo sameeyaan waxaa ku qasbayo inay dagaalada lagu qaadi rabo oo hujuumka ah inay ka hortagaan si oona dagaalka uusan u fududaan teeda kale waxaa la sheegay mahadow beelihii mar dhow beesha afgaal ee ku dagaalamay deegaanada isheeg shabeellaha dhexe iyo cadala agteeda maalin dhaweed heshiis ayaa la kala dhex dhigay marka shabaabku waxay iska soo dhigeen dadka deegaanka waxayna sameeyeen nin nabadoona ayay dileen si labada beel haddana mar kale isku dagaalan saaka dhaqaaq ciidana ka jiro oo labada beelood u dhexeeya laakiin dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhex jirtaa leeyahay kuwaasoo ayagana ka fikirayo sababta al-shabaab inta kusoo dhex martay shacab iska soo dhigtay ee ku dishay nabadoonka dhexaadinaya labada beelood ee halkaas ku dagaalamay marka ugu dambeyntii one ayaa socoto ururka al-shabaab waxay isku dayayaan si dagaalada dowladda federaalk soomaaliya ay ku fashilin lahayn mahadow okay kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay gooni falanqayaha barnaamijkeena ikhyaarta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay saas iyo nabadgelyo